Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Kabo Online Academy. Maanta halkan waxaan ku tubanaa casharkeena koowaad ee ku saabsanaa accounting-ka. Marka chapterkeena koowaad wuxuu noqon doonaa introduction ku saabsan accounting-ka. Marka videogan waxyaalahan kusoo qaadan doona waxaa kamid ah role of accounting information. Sidoo kale qodobkeena labaad wuxuu noqon doonaa business structure. Qodobkeena saddexaad wuxuu noqon doonaa accounting equation. Qodobkeena afraadna waxaan kusoo qaadan doonaa transaction analysis. Qodobkeena shanaadna wuxuu noqon doonaa introduction to financial statements. Marka qodobadan baan usoo qaadan doonaa mid kasta si kooban hadhow tolo chapterkeena dhexdeena aynu sii faahfaahin doonaa. Marka waxa ugu horreeya in isweydiin horta waa maxay accounting? What's accounting? Marka accounting-ku horta waxa uu qabtaa saddex shaqo oo muhiim ah. Marka qodobkooda waxa weeye waa wuxuu sameeyaa identification. Marka wuxuu identify gareeyaa inta business marka uu jiro dhacdooyin fara badan baa ka dhex dhacaya. Dhacdooyinkaasi waa qaar ku saabsan dhaqaale iyo qaar aan dhaqaalaba ku saabsanayn. Marka wuxuu identify gareeyaa dhacdadaasi ma economic event mise maaha. Marka hadday economic event tahay marka uu identify gareeyo waxa kale uu sameeyaa recording. Marka markuu recording sameeyo haddana wuxuu ka dhigaa waxa loo bedelaa recording communication. Marka waxa laga dhigaa mid la fahmi karo oo ay fahmi karaan dadkii isticmaalaya. Marka accounting-ku waa information system identification ku sameeya, identify bu sameeya, record bu sameeya iyo communicate bu sameeya. Marka waxa kale oo isweydiinaa waa maxay aim of accounting? Ujeedada accounting waa maxay? Marka accounting waxa ugu muhiimsan uu qabtaa waxa weeye inuu nasiyo provide sufficient information for users to make informed business decisions. Yani inuu nasiyo information ku saabsan businesska. Marka dadkii isticmaalayay communication waa inaga nidhiyo communication waxa weeye dadkii fahmi karaan. Marka dadkan isticmaalaya accounting ama ha noqdaan internal ama external wax fahmayaan businesskan miyuu faa'iiday miyuu khasaaray. Marka cidda u sheegsay inuu ama businesskoogu faa'iiday ama uu khasaaray waa accounting-ka. Marka accounting-ka aimkiisu waa intaa. Marka accounting waxaanu qaybnaa laba oo waa financial accounting iyo management accounting. Financial accounting marka waxa isticmaala external userska halka management accounting-ka isticmaala internal userska. Marka external userska waxa weeye waa dadka ganacsiga dibadda ka jooga. Marka dadka ganacsiga dibadda ka jooga waxa kamid ah dadkan maal gashanaya ganacsiga. Marka dadka maal gashanaya waxay doonayaan ogaadaan iyagu businesskan mid faa'iiday ba si ay u maal gashadaan soo mid khasaare si ay lacagtooda iskaga khasaarin. Management waxa isticmaalaya dadkan maamulka ee managerska. Marka si ay u ogaadaan level yani businesskoogu marayo ayay isticmaalayaan. Marka waxa kale oo eeg doonaa business structure. Business structure marka waxa weeye yani qaab dhismeedka businessku yahay. Marka inagoo keegna xagga ownership-ka marka wuxuu noqon karaa sole proprietorship oo business oo hal qof leeyahay. Marka cidda businesska abuurtay waa hal qof faa'iidadiisa iyo khasaarihiisa cidda qaadanaysa waa halka qof. Partnership waa laba qof. Marka businesska waxa maal gashaday laba qof. Labada qof marka waxay noqon karaan laba qof oo leh saami isleeg ama laba qof oo leh saami kala badan. Corporation baa jiro isaguna waa kii share-ka ahaa. Marka isagana 10 qof iyo wax ka badan dad badan baa markaan isagana iskale. Marka sidoo kale marka waxaan idan dul mari doonaa accounting equation. Marka waliba accounting equation-kaasi waa basic accounting equation oo asset waxay ku leegtahay liability plus ownership equity. Marka aan mid soo qaadano asset-ku waxa weeye waa resource-ka ama kheyraadka uu company-gu iska leeyahay. Kheyraadka ay shirkadu leedahay. Marka kheyraadkaasi waxay noqon karaan tusaale ahaan kale cash bay noqon karaan, account receivable bay noqon karaan, cash waa lacagtii caadiga ahayd. Account receivable waa deynteenu cid ku leenahay rajaynayno inuu helo. Waxay noqon karaan office supplies oo qalabkii xafiiska lagu isticmaalaa. Waxay noqon kartaa iyo kale equipment-kii oo qalabkii xafiiska inoo yaalaya. Waxa kale noqon kartaa vehicles-kii oo gawaaridiya. Marka dhammaan kuwaas waa wada asset. Waxa jira sidoo kale liability. Liability-gu waa shay kasta oo company-ga lagu leeyahay. Marka ama shakhsi ha ku lahaado ama company kale ha ku lahaado. Wax kasto company-ga cid ku leedahay waa deyn. Sida payable oo kale, bank loan oo kale, loan payable oo kale. Dhammaantood waa deyn company-ga lagu leeyahay. Marka qodobka saddexaadna waxa weeye ownership equity. Ownership equity waxa weeye waa hantiga oo qofka company-ga iska leh maal gashaday. Marka hantida uu yani ku sheeganayo inuu company-ga leeyahay weeyaan. Marka company-gu tusaale ahaan oo kale hadaynu nidhaahno maanta dukaan yar ay furano. Dukaanka waxa laga yaabaa inuu lacag tusaale ahaan cali oo kale isla dukaan furo. Waxa laga yaabaa inuu dukaanka yar u baahan inuu ku furo lacag dhan $1500. Marka waxa laga yaabaa inuu $1000 hayo. Marka $1000 500 baa ka dhiman 500 uu soo amaahday.
marka hadhow toilet dukaankaasi waa asset wuxuu ka kooban yahay 1500 marka $1,000 ownerka iska leh halka ay 500 tahay liability marka assetka dukaankaasi waxa weeye waa $1,000 oo gashaday iyo 500 soo amaahday marka isagana soo kale waxaan soo qaadan doonaa revenue waa dakhli ama waa shirkadaasi markay shaqeyso waa faa'iidada soo saarto ama waa dakhliga ay soo saarto marka ujeedada loo abuuray waxa weeye inay shirkadaan wax ama company ama wax inta tiga ay u sameynayba waa inay soo saarto dakhli revenue marka waa dakhli isaguna sidoo kale waxa jira expenses iyaguna waxa weeye waa kharashaadkii marka expense waxa weeye kharashaadkii marka shirkadu dakhli ma soo saari karto ilaa ay kharashaad gasho marka si aad dakhli u samayso waxaad u baahan tahay inaad guri kiraysato inaad shaqaaleysiiso dhammaan waxaas oo dhan waa kharashaad laakiin waxay sal u yihiin si loo sameeyo dakhli marka sidoo kale waxaanu si kooban u soo dulmari doonaa financial statementska marka financial statementska waxaa ka mid ah income statementska marka waxaa ka mid ah statement of owner's equity waxaa kaloo ka mid ah balance sheet waxaa kaloo ka mid ah statement of cash flow marka income statementska iyo dhammaantood mid kastaba sideedina soo qaadan doona marka financial statementskuna waa intaas nooc marka mid kasta si gaar ah ugu shaqeyn doona waxay tahay inuu sheegi doona marka casharkeenaasi introduction-ka intaas ku jooga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.